السلام عليكم ولا Soomaaliyeed ku soo dhawaada kanalka Dansheeg maanta waxaan soo mandhigayaa mowduuc ku saabsan shirkadii guusha ee Morgan Freeman ku soo dhawaada sababta dad badan ugu aaminsan yihiin fikir qaldan guushu waa iyagoo arka oo natiijada ugu dambeysay ee shaqo adag oo qof soo qabtay isla markaana u maleeyay inay nasiib ahayd waliba maqashay shirkadan in la yiraahdo Morgan Freeman haddii aad wax badan daawato filimada Hollywood-ka wax laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywood lagu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan bilada filimada ee loo yaqaan Oscar Prize taasi waa waxa dhab ahaan ka yaqaanaan dadku aktarka balse wax fikrad ah ma ka haysta hagalkii uu soo maray ka hor inta aan noqon aktar caan ah oo gol weyn gaadhay Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937 waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta koor lagu hayay dadka madowga ahi oo aad u xoogana iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiska midabta koorka qoyskiisii waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tan ay maanta ku jireen Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badanna wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaanta marar badan wuxuu isku dayay inuu noqdo aktar balse kuma guuleysan waqti aad dheer kadibna wuxuu soo arkay isagoo duuliye ama baaloodka ah diyaaradaha militariga waqti kadib Morgan wuxuu xaqiiqsaday inuu mihnada uu dhab ahaan u jecel yahay tahay aktarnimada waxaan go'aansaday inuu daba socdo oo aanu ka hadhin siduu uu aktar u noqon lahaa Morgan taasi waxay gaadhay 45 jir isagoo wax guul weyn ah gaadhay noloshiisa laakiin muuniyad jabin wuxuu sii waday isku daygiisii wuxuu ku guuleystay markay da'diisu gaadhay 50 jir ilaa uu kama dambeystii matalay filimada caanka ah markay da'diisu noqotay 67 jir Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay bilad aflaanta kadib silidiisii loo wada bogay ee filimka la magac baxay Millionaire Dollar Baby maanta mowduucan intaas ayuu ku saabsan yahay fadlan hadaad ka heshay qisadan sheekada ah kanalka saar like subscribe iyo share.